sanadihii u dhaxeeyay 1917 ilaa 1991 taariikhda iyo caalamkuba waxay diiwaan geliyeen jiritaanka midowgii ugu adkaa adduunka oo lagu magacaabi karo imbaradoriyadii weyneed kaasoo jebiyay naasiyadii Jarmalka caasimadii Berliin wuxuu u kala qaybiyay laba qaybood waana midowgii la baratamay Ameerikaankii dunida ku amarka taagleynayay isagoo kala soo muuqday dhammaan masraxyada kala duwan laga soo bilaabo qoryaha fudud ee garab gashadka ah ilaa iyo midka nuclearka ah isagoo la yimid ideolojiyad lidi ku ah tii reer galbeedka ee hantigoosadka ahayd galbeedkuna wuxuu ku eedeyn jiray kalitalisnimo ilaa lagu soo afjaro qaab riwaayadeed la yaab leh waxa uuna u kala furtay sidii tusbax xariga loo jaray oo kale midowgii Soofiyeeti argagaxgeliyihii reer galbeedka bilowgii hore taariikhdu waxa ay dib noogu celinaysaa 1917 markaasoo dad caraysani ay ku kaceen xukunkii qaysarkii Ruushka kuwaasoo ku guuleystay inay ka tuuraan kursiga waxaana la sameeyay xukuumad ku meel gaar ah markeeda ayaa isla xukuumadii ku meel gaarka ahayd kacdoon ugala wareegay talada dalka kacdoon yahanadii bolosheefigu oo ay horkacayeen Vladimir Lenin iyo taliyihii ciidankii casaa ee Leon Trotsky iyagoo halbeegga fikirkooda ku saleeyay fikradii filosofarkii reer Jarmal ee Karl Marx iyagoo ka gol lahaa in ay dhisaan dawlad cusub oo hanti wadaag ah si uu u noqdo kacdoonkii hanti wadaaga ee ugu horeeyay kaasoo meesha ka saara xukuumadii ku meel gaarka ahayd kadibna la wareega talada guud ee dalka waxayna xukuumadda Lenin ku dhawaaqday sameynta golo saddex geesood ah oo dalka maamula iyadoo Lenin loo caleema saaray madaxweynaha dalka Trotsky ayaa isna qaabilsanaa arrimaha dibadda halka Joseph Stalin mas'uul looga dhigay dadka laga tirada badan yahay ee ku sugan gudaha Raaska wuxuuna golahani cadeeyay in Ruushku ka baxay dagaalkii koowaad ee adduunka iyo rabitaankooda ku aadan in heshiis gaar ah lala saxiixdo Jarmalka kacdoon-yahanadu sidoo kale waxay soo saareen wareegtooyin kala duwan oo ay kula wareegayaan dhulalka madaxdii waaweynaa ee qaysariyadda iyo warshadihii hanti wadaagga oo lagu darayo inay ku dhawaaqeen xuquuqda dadyowga ay u leeyihiin inay ka go'aan boqortooyadii Ruushka wax yar kadib waxaa bilaabmay loolan u dhaxeeyay Bolsheviga iyo saaxiibadoodii hanti wadaagga ahaa ee Menasheviska kuwaasoo diiday go'aamada Bolsheviga isla markaana la xulfaystay xisbiyada garabka midig dalka ayaana galay 5 sano oo dagaal sokeeye ah oo ah intii u dhaxaysay 1917 ilaa 1922 kaasoo ku dhamaaday guushii Bolsheviga midayntii jamhuuriyadda 3 bishii Diseembar 1922 waxaa dhidibada loo taagay midowga jamhuuriyadaha hanti wadaagga Soofiyeetka waxaana lagu cadeeyay go'aanka golaha Soofiyeetka ee mid kasta oo ka mid ah jamhuuriyadaha kala ah jamhuuriyadda hanti wadaagga federaalka ee Ruushka Ukraine Belarusiya iyo jamhuuriyaddii Qowqaas Moscow ayaana loo doortay inay noqoto caasimadda federaalka laga soo bilaabo 1924 ilaa 1940 jamhuuriyadaha Uzbekistan Turkmenistan Tajikistan Azerbaijan Kazakhstan Kyrgyzstan Estonia Latvia Lithuania iyo Moldova ayaa la midoobay Soofiyeetka marxaladaha uu talada hayay Joseph Stalin geeridii Vladimir Lenin kadib 1924 waxaa xilka kala wareegay Joseph Stalin oo halgan adag oo xagga awoodda ah la galay koox ka mid ah hogaamiyayaashii shuuciyadda ee uu hogaaminayay Leon Trotsky Stalin wuxuu awood u yeeshay inuu u xalliyo isku dhaca sida uu isagu jeclaa waxa uu soo saaray dastuur cusub bishii Maarso kaasoo isaga siiyay kalitalisnimo buuxda oo xukunka ah Stalin wuxuu horseeday ka bixitaanka mabaadi'dii uu ku salaysnaa kacaankii Bolsheviga ee Oktoobar 1917 isagoo diiday inuu aqoonsado xuquuqda dadyowga ay u leeyihiin ayaka tashiga ilaa xadka goosashada iyo samaynta midow jamhuuriyada leh xuquuq siman xilligii Stalin midowgu si tartiib leh ayuu iskugu bedelay dawlad midaysan oo leh awood dhexe oo rasmi ah hadallada Stalin ayaana noqday nuqulada dastuurka xisbigu wuxuu ahaa barta laga maamulo qaybaha wadanka iyadoo aan la tixgelin aragtida jamhuuriyadaha kala duwan jamhuuriyadaha qaar xoog ayaa loogu qasbay la midowga Soofiyeetka kuwaasi waxaa ka mid ahaa Georgia iyo Ukraine xilligii uu socday dagaalkii labaad ee adduunka Tatarkii Crimea iyo Chechnya waxaa laga masaafuriyay dalalkooda iyadoo loo masaafuriyay Siberia iyo Kyrgyzstan sidoo kale jamhuuriyadaha Baltiga waxay la midoobeen midowgii Soofiyeeti sida ku cad heshiiskii dhexmaray Stalin iyo Hitler markii ay qaybsanayeen goobaha saameynta leh
1930yadii waana sababta ay dadka dhulkaasi leh ay u raadinayeen inay ka go'aan midowgii Soofiyeti. muddadan sidoo kale waxaa goobjoog loo ahaa isirsifaynta qowmiyadeed ee ciidamada Stalin ay u geysteen dadweynaha jamhuuriyadaha islaamiga ah ee gobolada Qowqaas, Turkistaan iyo Tataristaan iyagoo u dilay 100,000 oo qof sababo kala duwan awgood. waxaa si qasab ah looga barakiciyay 5 milyan oo muslimiin ah dalalkooda, waxaana dhulkoodii lagu wareejiyay ilaa 12 milyan oo Ruush ah. inkasta oo uu Stalin heshiis nabadeed la saxiixday naasiyiintii Jarmalka bishii Agoosto 1939, haddana taasi kama hor istaagin hogaamiyihii Jarmalka Adolf Hitler in ciidankiisu uu soo ruqaansado dhinaca midowgii Soofiyeti. fiidnimadii 21 Juun 1941 duulaanka Jarmalku wuxuu u horseeday midowga khasaare ba'an, gaar ahaan maadaama uu midowgu garabka ku qaatay culayska jabhaddii dagaalka ee bariga ilaa muddo 4 sano ah. markii uu dhammaaday dagaalkii labaad ee adduunka, waxaa bilaabmay tartan iyo loolan uu midowgu la galay galbeedka, iyadoo ciidanka cas ay duulaan ku qaadeen magaalada Prague ee caasimadii hore ee Yugoslavia Febraayo 28 1948, iyo inta kale ee bariga Yurub, wuxuuna ka dhistay maamulo shuuciyiin ah oo isaga taabacsan. 29 Agoosto 1949 midowgii Soofiyeti ayaa sameeyay tijaabadii ugu horeysay ee qomboliyad nuclear ah, wuxuuna aasaasay ururkii dhaqaalaha ee Comecon si uu u xoojiyo maamulkiisa dalalka hanti wadaagga, iyadoo laga jawaabayo qorshihii Marshaalka Mareykanka ee ahaa in la taageero dhaqaalaha wadamada galbeedka Yurub ee dagaalku halakeeyay. marxaladii madaxweyne Khrushchev dhimashadii Stalin kadib 1953, Nikita Khrushchev wuxuu la wareegay talada isagoo xoojiyay haymanadii adduunka ee midowgii Soofiyeti ilaa uu ka noqday loolan isbarbar socda oo uu la galay Mareykanka, gaar ahaan kadib markuu aasaasay gaashaanbuurtii militariga ee Warsaw 1955 si uu u barbareeyo gaashaanbuurta NATO iyo tagistii Soofiyetku tagay dayaxa markii ugu horeysay 1957. si kastaba ha noqotee, tani kama hor istaagin Khrushchev inuu ku dhawaaqo inuu qaatay siyaasadiisii nabad ku wada noolaanshaha caalamiga ah sanadkii 1954, inkasta oo xiriirka wadamada reer galbeedka uu noqday mid kacsan waqti ka waqti ilaa la gaaro Oktoobar 1962 oo ahayd markii ay soo ifbaxday xiriirxumadii ugu weyneyd abid kadib markii midowgii Soofiyeti uu ku rakibay gantaaladiisii balaastiga ahaa dalka Kuuba oo dhaca meel u muuqata xadka Mareykanka. marxaladii Brezhnev bishii Oktoobar 1964, xubnaha golaha sare ee midowgii Soofiyeti waxay go'aansadeen inay Khrushchev ka saaraan madaxtinimada, waxayna madaxweyne u doorteen Leonid Brezhnev oo hoggaankiisu barbilow u ahaa hagaajinta xiriirka Mareykanka, kaasoo horseeday in labada dal ay kala saxiixdaan heshiiskii START 1972, kaasoo dhigaya in la xadeeyo hubka nuclearka ah. waana xilligii ay korortay saamayntii midowgii Soofiyeti ee Afrika iyo Latin America, waxaana la casilay intii lagu guda jiray duulaankii Soofiyedka ee Afghanistan dhammaadkii 1979. kadib Brezhnev bishii Oktoobar 1982 waxaa ku guuleystay talada Soofiyedka madaxii hore ee sirdoonka KGB-da Yuri Andropov oo isku dayay inuu dejiyo qorshe dib u habeyn dhaqaale, laakiin wuxuu dhintay Febraayo 1984, waxaana lagu bedelay Konstantin Jarenko. laakiin sidoo kale wuxuu si dhaqso leh u dhintay bishii Maarso 1985.